dalkan doorasho ka soo socota leeyahay doorashada ka soo socota xisbiyo badan doorasho gala xildhibaanadan doorasho laga rabaa inay u dareeraan dadkii waxa ka sheegi lahay bariga haday xaqiraan oo wax ka soo sheegi lahay oo hadii wax la beenayo sheegi lahay haday bariga xaqiraan baritiya wax ka soo sheega oo wasaaradan kaliya baxdo oo sanduuq wax lagu shubahayo kaliya in lagu shubto ay hala hadda fadhiya meesha kaliya ay soo baxaan ku xireysan bil Soomaaliya wasiirada ka iyo madaxweynahan iyo ra'iisul wasaaraha haday soo baxaan wixii kalena banaanka lagu dhigo oo idinku ku jirtiin wuxuna idinka aadan sixisaan xaqeed hadhow ka galaysiin hadda la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xuquuqdiisa aad ogolaatiin sida xaqiina loo sheego gudoomiyaha gudigan anigu gudigu mahad celima sababtoo haday saxaanan u mahad celilahay haday dadka wada qoraan oo qofna yiraahdeen waxa lama qaadan qofna yiraahdeen waa la qaatilo mahad celilahay laakiin indhaadaga inta la soo istaago lama qaadan ma lagu faaraa waay gudoomiye saas maahan gudoomiyaheena oo aqalka sare taladan tala xukuna waay maahina tala ikhtiyaara ama baarlamaan gudbiyo maahan waxaan aad u codsaha wixii la tilmaamo warqadahoodu waa yaaliin dadka qorayna waa joogaan waqtiga hore dadkii laga qorana waa la yaqaan in dib la iskugu noqdo aqoonyahankina waa joogaan ninkaan agteeda fadhiya kamida maalintina meeho fadhiyay dadka magacooda ha soo qoro qofebal waxay sheegtay lama qaadan war waay laakiin kullu goor qof wax laga qaato ma laha todobada wixii waxooda la qaato kuma jiraan waxba wax yar laga qaato waxana waxa loo dhigay si loo sahla oo qaadasho ahayn aniga u cabaad maayo been dadku waa cabaadan mii wax alla wixii dhacaayo waxay ka dhacaan magaaladan aan xaquuqdeeda waa loo wada simeeyaa xaqada waa la wada qaataa laakiin eedeeda looma wada sinna dadku hadoo leedo waa la qarshaa wariyaasha jooga magaalada haday joogaan waxa la leeyahay waxa ma sheegi kartiin waxa sameeyay kartiin waxa sameey kartiin hadda waxay qaadaan ma sheegi karaan qaran waxooda duubay waa kuwaas wax ay duubayaan marna alkooda ma daar badankooda hadda maanta waa badan yihiin gudoomiye waxaan jecelahay gacantuun hala taago wuxuu inay naqan waxa ay qalad yihiin qaladkooda hala saxo haday sax yihiin gacanta horay idoo wala wada maqsuud yahay waa u taagayna warkaygana dadka soo sameeyay dadaan nacaba ma ahan laakiin wasiirkana ma nacbi laakiin shaqada oo hadda uu rabay in loo fuliyo boqolkiiba boqol waa ka soo horjeeda waana nacabahay mana fiicna dadkan xaquuqdooda hal ogolaado waxay xur ayan u ahaa karin sharciga al horgeeyha wixii xaq loogu leeyahayna sharciga looga qaadaa dalkan canshuur waa la qaadaa dawladda hoose qaado wasaaradda kale wax walba qaado ayaguna saasoo kale ayaa looga qaadi doonaa wixii laakiin gacantaan ku hayaa wasiirkan wasaaradiisa ku filnaato wasaaradiisa gacantaa ku haayo laakiin dadkan oo hayo mantaqada madax in la madax baneeyo la rabo ha madax baneeyo kulligood yooban isku duubin hadoo wada qorahayo wariye kale ma jiraayo ana wada qorahayo oo leeyahana hadda waa dalan xurahayn oo degtay tarnimo u socdee hana loo cadeeyo intaas aan rabaa
waa mahadsantahay gudoomiye.